sideed haro oo karkaraya ee caalamka ku yaala mucjisooyinka dhulka hoostiisa. Adduunka maanta waxaa ku yaala harooyin aan caadi ahayn, biyahoodu ma aha kuwo qabow mana aha kuwo la dabaasho. Waa harooyin si dabiici ah u karkaraya kulaylka ka imaanaya dhulka hoostiisa. Gaasaska foolkaaneed iyo cadaadiska dhagaxyada ayaa biyaha u beddela kuwo kulul oo ololaya. Maanta aan booqanno sideed ka mid ah harooyinka ugu kulul, uguna halista badan, uguna yaabka badan adduunka. Harada koowaad waa Boiling Lake Dominica, oo dhacda bartamaha jasiiradda Dominica. The Boiling Lake oo leh biyo karkaraya heerkulkiisuna gaarayo 95 degrees centigrade. Gaasaska foolkaaneed ayaa biyaha kor u sii kuleeliya halka darafyada haradu ay weli yihiin kuwo uumiga uu ka baxayo. Waa meel qurux badan balse halis ah. Qofkii u dhowaada wuxuu dareemayaa kulaylka iyo udugga maadada sulfur. Harada labaad waa Frying Pan Lake oo ku taalla New Zealand. Haradan waa tan ugu weyn ee biyo kulul leh adduunka, waxaana la sameeyay kadib qarax foolkaaneed sanadkii 1886. Biyuhu waa kuwo acid leh waxayna u muuqdaan sidii saxan karkaraya. Dadka deegaanka ayaa rumaysan inay leedahay awood dabiici ah. Harada saddexaad waa Hot Lake Oregon oo ku taalla dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Oregon. Haradan Mareykanka ku taalla ayaa caan ku ahayd adeegsasho caafimaad waayadii hore. Dadku way ku dabaalan jireen iyagoo aaminsan in ay daweyso jirrooyinka qaar. Maanta waxaa lagu daraaseeyaa noolaha yaryar ee ku nool biyaha kulul, kuwaasoo u dulqaata kulaylka heerkulkeedu sarreeyo. Harada afraad waa Lake Bogoria oo dhacda dalka Kenya. Biyaha haradan waa kuwo cusbo badan oo leh kulayl, balse waxaa ku nool kumanaan xayawaanka loo yaqaano flamingo. Sababta waxaa ku jira noolayaal badan oo flamingo cunto ahaan u adeegsado, waana tusaale la yaab leh oo muujinaya sida noolaha qaar ugu noolaan karaan xaalado adag. Harada shanaad waa Jigokuwani Heli Valley oo ku taalla dalka Japan. Magaca macnaheeduna waa dooxadii jahannama ama meeshii aadka u kululeed. Dhulka ayaa qiiq ka kacaya, biyaha karkaraya ayaana ka soo burqanaya, waxaana meelahan laga dareemayaa urka kiimikada. Dad badan ayaa u arka meel quduus ah, halka saynisyahanadu ay u arkaan goob cilmi baaris oo muhiim ah. Harada lixaad Dal Lakes oo ku taalla dalka Itoobiya. Harooyinkan waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu kulul, ugu foolkaaneed ee dunida. Heerkulkeedu waxa uu gaaraa in ka badan 100 degrees centigrade. Biyuhuna waa kuwo aashito aad u xooggan leh. Saynisyahanadu waxa ay daraaseeyaan noolaha extremophils ee halkan ku nool si ay u fahmaan suurtagalnimada nolosha meerayaasha kale sida Mars oo ah midka ugu soo dhow dhulka xagga qaabka iyo noloshaba. Harada toddobaad waa Kelamutu Kareta Lakes, Indonesia. 3 haro oo mid walba leeyahay midab ka duwan buluug, cagaar iyo gaduud. Midabkoodu waa uu isbedelaa sababta oo ah gaasaska foolkaaneed iyo isbedelka kiimikada biyaha. Dadka deegaanku waxa ay rumaysan yihiin inay harooyinkanu yihiin ruuxdii awoowayaashii hore. Harada sideedaad waa Fiti Crater Lake oo ku taalla dalka Iceland. Dalka Iceland oo ah dal caan ku ah kulaylka dhulka, waxa ay leedahay haro buluug ah oo ku taalla god foolkaaneed. Heerkulka iyo uumiga ka baxaya ayaa ka dhigaya meel cajiib ah oo saynisyahanadu ku bartaan sida kulaylka dhulka u shaqeeyo. Harooyinkan karkaraya waa mucjisooyin dabiici ah oo na tusaya awoodda Eebbe ee ku qarsoon dhulka hoostiisa. Waa meelaha sayniska laga barto, dhaqamada laga ilaaliyo, dalxiiska laga helo, waayo aragnimada cajiibka ah. Se waa meelaha halis ah, meel u dhow foolkaane firfircoon ama haro karkaraysa waa in la dhowraa lana ilaaliyaa maadaama ay meelo la daawado yihiin. Harooyinkan waxa ay na xasuusinayaan in dhulkeena dunida uu yahay mid leh awood aan la qiyaasi karin. Adduunku waa buug, qofka aan safarka gelinna waa mid akhriyay boggiisa koowaad. Harooyinkan karkaraya waa bogga ugu xiisaha badan ee buuggaas. Ha hilmaamin daawada inaad nagu soo biirto.